waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka laba maanta ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood turturiyeero dhacday dhimashada oo cirka isku shareertay kadib markii madaafiic loo isticmaalay dhanka kale ma ogtahay in la qorsheynayo in la dilo mid kamid ah garaadada iska dagaalama sool kuwaas oo ay huwanta lafteedu rabaan mar kale inay shidaal uga dhigtaan sababta loo dilayaan rabaa inaan idin sharxo sidoo kale dhimashada iyo dhaawac oo 300 soo dhow shalay toole oo ay aad u sii kordhay noocyada baabuurtii ugu laga gubay ee dhabarka ay kaga jabeen oo aad u qaali ahaa waxa soo dhamaan doonaya inaan idin yara sharaxo marka hore barnaamijka subscribe saar hadii aan channel-ka mid ahay ku soo biir follow saar page-keena kuna soo dhow barnaamijka shalay toole waa ki dagaalkii shalay toole nimanka ka dhacay dhimashadii aad bay u kordhay dhaawacii waxaana la soo ogaaday inay u dhaxayso dhimashada 250 ilaa 300 dhanka kale waa kuwii lahaa laba kaare mid waa kii ay maalintii hore laga gubay kii kalena shalay toole dirqi ku baxay markii dambe way la baxsadeen waxaana laga gubay suugag ama nooca loo yaqaan lidka diyaaradaha 87 iyo 40 oo runtii ay dhabarka kaga jabeen waana labadii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad ka u dhibay markasta ay ku soo tuuri jireen labadaasna waa ku daayeen taliyayaal aad fara badan rag badan oo saraakiila ayaa shalay toole ku hoobtay ciidankaasi huwanta sidoo kale hadaba maanta dagaalka la soo qaadeen hal hoobiyay soo tuureen iyagoo rabay bal in markii hoobiyaad tuureen lagu soo tuuro sax ujeedka ay maanta dagaalka lahayn maadaama ay dadkan ka soo ururiyeen miyiga oo dadkii way ka kala yaaceen ninkii markuu qof kasto miyiga meelaha ka yimid shalay toole markuu Ilaahay badbaadiyay ee uu arka dhimashada dhaawaca in adeerkiisa ku dhacday wax saa u dhacaya way ziyaar kala yaaceen si hadaba ay dagaal kala ku qabsado oo meel aad uga baxsataa ma jirto loo yiraahdo oo ay hoobiyaal soo tuureen hoobiyahaasi hal askari baa ciidanka qaranka ku dhintay wax badan ma gaadhin kadibna waa loo miisay saasaa loogu miisay soddonka ee hoobiyayaasha hubka noocyadiisa kala duwan ee jaqaaqda wixii oo dhan basaa loogu miisay digada iyo dambaska ayaa laga dhigay waxa la xaqiijiyay dhimashada 13 qof dhankooga waana laga yaabaa inay sii siyaado xaaladdu aad bay u adag tahay laakiin nimankii reer miyiga ahay waxay shalay toole soo ururiyeen kala yaacay shalay toole aad bay isku soo diyaariyeen dhiigagoogii way soo habaysteen wax kasta way soo habaysteen hub laakiinse waxba kamaysan faa'iidin lacagihii maadaama oo laga jaray dadkii maadaama ay arkeen in guuldarro ay gaadhayaan barnaamij bay keeneen nimankii huwanta barnaamijka waxa la yiri dagaalku maadaama laga soo caajisay maadaama dadkeenii lacagtii ka dhamaatay maadaama inaan goob cad gaarin maadaama gumoobna maadaama waxyaabo badan baa la isbarbar dhigay fikrad baa la keenay waxa la yiri hala dilo qof weyn si markaasi loo yiraahdo waxa dishay ciidanka qaranka Soomaaliland dadkuna mar kale u hiyay kacaan yiraahdaan halkeen ku kala xadnaa kadib waa tii la dilay Allah u naxariistay abwaan jaamac kadiya cilmi iyaga dilay taasi dabeedna markiiba waxay ku eedeeyeen Soomaaliland waxaad aragteen iyaga dhexdooda codadka ka soo baxaya niman waaweyn oo siyaasiyiin ah oo aad arkayso codadkooda la wareejinayo inay jaamac kadiya cilmi iyagu dileen cadaysanaya kadib waxaad arkaysaa warbaahintoodii oo haddana cirka isku shareertay oo aragteen sida ay isugu jawaabayaan waxyaabo fara badan baa isuwan marka waxa la yiri aynu dilno ninkaasi okay ninkii markii la dilay hadda waxa la qorsheynayaa si dagaalka shidaal marka loogu dhigo in la dilo mid kamid ah garaadada okay mid kamid ah la rabaa in haddana la dilo kadib la yiraahdo tolaay ka kacay oo dabeedna sida la isugu yaaco oo la yiraahdo halkeen ku kala haray oo wixii lacag yar hadii la soo diro oo meel kasta lagu cararo oo kii saaxiib lahaa tolaay daarooday tolaay maxay la yiraahdo okay dhanka kale Puntland maadaama maamul samaystay Puntland may soo hambaliyeen maamulkoodii ma rabtay inuu la qaado Soomaaliya waa tano wax maamul goboleeda oo maysan aqoonsan dhaqaale ma helayaan waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in si fudud u la heshiiyo wana sababta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markasta oo gudaha u gala magaalada uu dib uga soo baxayo sababta wuxuu diidayaa in magaalada dhexdeeda lagu dagaalamo in hadhow torokiis looga dhigo in qaramada midoobay la yiraahdo waxa soo dhan bay geysteen magaalada markuu ciidanku gudaha ugu keeno dib uga laabta sababta oo ah magaaladii hadii lagu dhex dagaalamo hub waaweyn baa dhacaya dabeedna waxa dhacaysa in magaalada ay dunto taasna waa qodob kale iyagu markaasi ay waxa soo danka male
magaaladooda duntaa waa dantooda iyagiibaaba duminaya waxay rabaan ragga waaweyn sidii awalba ay u leyn jireen Somaliland waayo raggan iyaga awalba leyn jiray iyaga leyn jiray nimankii laay iyaga dilay Hadraawi iyaga dilay intaasoo qof ma jiro faa'iido ugu jirta nin yaro wadanka yani bariga dalka ah magaalo yaro halkaa ku taalo tuula in dadkeega la ugaarsado faa'iido ugu jirta Somaliland ma haleelayso intaasoo mashaariic iyo hawl iyo bahalba u taalay okay midda kale mucaarid iyo muxaafid iskuma heshiin karaan aynu dilna qof waad ogtay Somaliland taasoo la iskaga hor yimaada waa la isqabtaa saxaafadeedii ba halisa meediyaheegii baad aragtaa point la isuma ogolaado ma dhici karta marka in assassination lagu sameeyo in la dilo dad reer Somaliland oo walibana gobol ka soo jeeda arinta laakiin si Somaliland iyo dadka deegaanka loo kala dilo iyaga ayaa dila maantana xaqii baa qarqarxay xaqii baa feeraha ka booday waad aragtaa iyagii baa iska wada hor yimid dhanka kale ogsoonow maalmaha soo socda waxa la rabaa in mid kamid ah garaadadii la dilo qaar badan warkaa way ogaadeen shalay tolo dagaalkii buu dhex raaciyeen kii saax dheer tagay kii kala bayr tagay waad arki doontaa maalmaha soo socda waxay qorsheynayaan inay dilaan mid kamid ah garaadada si loo yiraahdo garaadkaas ma garaad kala dagaal ku noqon ma isaga bay jecel yihiin ma wuxuu noqonayaa garaad maxay tahay garaad jaamac garaad Ismaaciil waneegi doona garaad Soofe mid bay qambalaf kaga siinayaan marka ay dilaana waxa loo dhahay Somaliland bad waliba u fiirso kuwa reerkooga laga yeeshiisan yahay leeyahay dagaalka xoog ma galaan ama qiyaadeeday reer hebelkeeday reer garaaday wuxuu mid baad arki doontaa garaadadooda laga yeeshiisan yahay inta la joogto la yiraahdo tolay xagan dagaalka kaga hadnaa garaadkeeni baa la laayay dadkani waa dad assassinationka iyo shirqoolada iyo balaayada iyo beenta balaayada khuraafaadka dadka iyo dawladooda in la kala dilo dadkii oo la qaxiyay hantidii ummadda halkii laga siin lahaa dadka qaxootiga ee qaxay wax laga siin lahaa waxa loola cararaya markasta in hubiyo rasaas iyo dhiig la soo siisto waxa soo dhan waa waxyaabaha burburiyo ummad ee aan lagu liibaanin taasi oo ugu dambeyntina ka dhigaysa qof burbursan oo jabkoogii hadda uu soo dhawaaday dagaalkii laascaanood wuxuu noqday mid laga xiisa dhacay caalamkuna ma dhageysanayo xaqiiqadina waa la arkay in guryihii gacmahooga ay ku gubeen in dadkoogii ay gacmahooga ku leynayaan in dadkii masaakiinta aanay ogoleen wax la siiyo in iyagii magaalooyinkoogii qaar la camiro qaarna laga yaacay laascaanood waa laga qaxay Buuhoodna waa caadi saax dheer waa caadi kala baydh waa camratay Garowe waa caadi Boosaaso waa caadi haddii dagaalkii laga mid yahay magaalo kasta laga kicilaa laakiin afar baa intay halkan ku soo duubtaan tolaaye hiil hartibaanu nahay walaali waxa la akhriyay sheekadaas way soo dhamaatay qaranka jamhuuriyadda Somaliland gacanta ku dhigayaa maalin dowr wad arki doontaa taas shidaal looga dhigayaa laakiin sheekadaas way soo afkarmasaa inay duuna eeg kaarta kasto sameeyaan ilaahayna u arkaya war barnaamijka sheer gareey meel fogaarsi cadawga jamhuuriyadda Somaliland